waxaynu wada arkaynay maalin dhaweyd inaan hableena kamida waxa laga yaabaa iyadu inaan islahayn qalad baad samaysay oo mas'alo weyn ka hadashay oo tiri ninku hadduu gabadhiisa qasbo oo gabadha ay ku diido oo qasbo uu kufsaday oo arin aad iyo aad u halis weey kufsigu waa zino ileen zinadu min rida bay ku timaadaa labada qof ay iskaga raaliyiin midna waxay ku timaadaa jujuub iyo afduubun waa zino xukunkiisu marka uu socdo kufsi aakhirka waa zino wala qof oo aan isgeeyin laba qof oo isku xalaal ahayn oo isu galmooday way ama ridaha isugu galmoodaan ama jujuub ay isugu galmoodaan labadan qof waa laba qof oo isu xalaal ah nikaax iyo aqd iyo meher sharciya baa isugu dhacay gabadhu marka hore xaq ba uma leeyahay ninka diido sharciyan xaq uma laha waayo labadan qof waxay isugu yimaadeen ba inay isku dhowrsoonaadaan sida ninkuba ay culimada qaar tilmaameen jawaahirtu siday mareen badanka culimadu hadii gabadhu ninka ay ka dalbato in maaragtay waxa weeyaan godasha ay ugu yeedho oo awood u leeyahay inuu diido ma banaani waa waajib inuu aqbala وهكذا المرأة gabadhina waa sida xuquuqda ninku gabadhiisa ku leeyahay iyo xuquuqda gabadhu ninkeeda ku leedahay ayuu arrinkani ka mid yahay marka waa arin dabada ku haysa afkaar gaalo iyo dumarkii loo tusay inay yihiin la haystayaal rag way iska leeyihiin inta ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq uu siiyay gabadha rubiceed ma siin karaan ibn aadamku gaalada maanta inale gabadha xaqeeda hal la ilaaliyo ku iyagoo nool aasi jiray aabayaashood miyaan ahayn ilaahay uu quraankiisa ku sheegay wa idal maw'udatu su'ilat bi ay dhanbin qutilat til xabaalnololiyo waa la isweydiin maxaa lagu dilay iyagoo nool miyaan dumarka aasi jirin kuwana miyaan kuwii un ka soo jeedin xagee ka yimaadeen xaqay maanta doonayaan gabadha inay siiyaan xagee ka keeneen min ayna lahum hada al-aql wa hada ad-damir al-hayy damirka nool xagee ka keeneen iyo aqligan saliimka إلهي ميانو قرآن كيسا كورن لطكني ماشي كسو تشيدان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ولا ساء ما يحكمون إلهي ميانو أيضا ينوغو بالبلارين midkood marka loogu bushaareeyay inaan u dhalatay wajigiisu madooban jiray ragana uu ka dhuuman jiray oo yaab baabay haydin uu haysto inaan waxay inaan taliye aamus baa la oran jiray waxay inaan u dhalatay aamus laba ay u taagantay buu ilaahay yiri inuu iska haysto isagoo dulaysan oo lagu caayayo iyo inuu ciid hoos mariyo oo amuuda ku aaso ilaahay wuxuu yiri waxa xumaaday waxay xukumeen walaagaas ka soo jeedaan kuwan